حسن الشيخ محمود مدحونimo ma qalmaan وما خلمو maxaa dhacay because حسن الشيخ محمود وأهورة waxaan leenahay anu gabdhahaygiina waa ka haysto meel almadow la yiraahdaan geeya xalay dheel aabo mana gadanaya wallahi gaari baan saaray xalay gaari aan ku qaxana waa dirsaday السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. سو aragtaa walaal doorashada Soomaaliya xasan الشيخ محمود madaxweynimo ma qalmaan uma qalmo walaal wuxuu soo qalmisan maxaa dhacay uma qalmo waxaan ku jirnaa 4 sano balaag dheedan ku jirnaa ma garad anagu waxaan u taageersanay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasna waxa weeye xildhibaanada xunka iyo xamar la isugu geeyay baa ka hiiliyay aad baan u cambaaraynayna farmaajo maxaa ahayd bas dhigi kartaa mise maxaa ciilay farmaajo waxa weeye tollaan badashay hawiye isugu tagay daaroodkii waxa la rabay inay isugu tagaan waxa weeye daaroodkii baa ka hiiliyay waxa weeye anagu ninkaasi dani baa ka hiiliyay baan aaminsanahay waxaan u rajaynaynaa 4 sano kulli wax yar baan noqonaysaa inuu Ilaahay noo soo celiyo baan rajaynaynaa insha Allah عليكم السلام walaal soo aragtaa doorashada Soomaaliya mise xasan الشيخ محمود madaxweynimo ma qalmaan walaal Soomaaliya doorasho kama dhicin waxaan aaminsanahay xalay 6 habeenimo Soomaaliya inay ceel ku dhacday ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba waa uga tacsiyeynaya midda labaad anigu xalay wareegii saddexaad markii la galay oo 170 cod marayay baa waxaan dirsaday gaari laba shirra ah oo jaraa'il oo aan ciyaalka ku qaxsado ma ahan madaxweyne Soomaaliyeed reer galbeed baa keensaday gaalada noocooda liidato Kenyaatiga iyo eberkaayo dalkeena u soo shaqato badaheena lagu haysta ayaa keensaday dadka Soomaaliyeed waa uga tacsiyeynaya madaxweyne waa kii naga tagay maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan kale aad uga xumahay oo halkaan aan leeyahay Ilaahay hortiisaan ku xisaabtamayna xildhibaanada ku sheega qaybtii soo saadhay intii soo saadhay madaxweynaha Kenya oo madaxweynaha ajnabiga Xasan inta soo saadhay waxaan leeyahay Ilaahay hortiisaan ku xisaabtamayna maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo 110 xildhibaan u codeeyay waxaanu leenahay Ilaahay hortiina ha dhigo khayr tabartiina qabateen laakiin waxaad weydaan wax Soomaaliya oo si sax ah idin la safta ama wadaninimada iyo Soomaalida bilaadanimada iyo islaamnimada aad wadaan idin la garta marka insha Allah xaq iyo xaq darrada xaqa xoog badan waanu gaari doonaa waxaanu leenahay madaxweynaha Ahura waxaan leenahay anu gabdhahaygiina waa ka haysto meel almadow la yiraahdaan geeya xalay dheel aabo mana gadanaya wallahi gaari baan saaray xalay gaari aan ku qaxana waa dirsaday dadka inta gaari gacmada iyo dayarta gabdhahoodana niyo u ilaalisay assalaamu calaykum وعليكم السلام soo aragtaa doorashada Soomaaliya mise xasan الشيخ محمود madaxweynimo ma qalmaan وما خلمو maxaa dhacay because حسن الشيخ محمود ceebo badan buu ka geystay dalka iyo dadkaba maxaa la sheegaya xataa gabdho badan uu u dhiibay wadamada shisheeye oo ilaa hadda la laayahay uu ka gatay cimaaraadka iyo carabta gabdho qaar oo dabaqyo iska tuura baa jiro gabdho qaar ee hooyooyinkood laadahay baa jiro aniga ma garaafaynayo maadaama uu Ilaahay nasiibka u soo celiyay ninka asiga qabiil ahaanna uma hadlayo run ahaantii haddaan runta ka hadlo laakiin uma qalmo maxaan leeyahay madaxweynaha Farmaajo oo sharafta badan madaxweyne muddo 30 sano ka bacdi oo sida u wanaagsan anaga kulli maana helin Soomaali waa dhibaataysan tahay dhibaato badanna way aragtay aniga kamida Soomaali dib macaankeedana maxaa dareemi karo dadka qurbaha ka yimaadeen oo arkay qaxootinimada waxay tahay sida aniga kale qaxooti faa'iido ma lahan dalkeena wax nooga macaan ma jirto midaan ka hadlaya marka maxaa weeye muddo 35 sano ka bacdi Farmaajo muxuu ahaa miduu Ilaahay noo soo diro Ilaahay noo doortay subxaanahu wa ta'ala samcad darana ma uga tagin dalka ee samcad buu uga tagay lacagna ma dhicin ee wuu dhisay حسن الشيخ إلا حد إلا حال ما نصيحن ومدحوينه إلهي بانو دورتي مرلباد إنه دلك قبطو ما قرتي لكن وانكحمهاي وصابته وانكحمهاي إلا حد إلا حال ما نصيحن وحا وانكحمهاي محاوي وننكي أسجودي كيناتي أنا إسلام بانهاني
inaan sujuudnona xaq maahan inaan ilaahay oo keliya weeye inaan u sujuudno ee maahan dad ajnabi ah inaan u sujuudno xasan axmed sheekh waa ninkii baddeena gatay waa ninkii gabdhaheena dhibay uma qalmo dowladnimo ee nasiibkii baa siiyey mar labaad asigoo siiyey nasiibkii uu ilaahay qadartaa qoray haddana maxaan leeyahay qofku waa waantoobi karaaye waantoobo sida hore iska bedel waa ninka sarkaalada iyo ciidamada ku yiraahday haddaada $100 qaadanaynin gurihiina aada farmaajona waa ninkii dhisay dalkeenna iyo xooggeena iyo noo soo celiyey hawadeena naga maqneed muddo 30 iyo xoogaa sano marka maxaa leeyahay farmaajo ku dayo isna bedel maahan dalkaaga inaa gedi waan ogahay majority dadka kugu shubay inay ugu badan yihiin qabiil ahaan magaalada muqdisho doorti badana weliba ugu shubay ninkan ina adeerkana oo camanka waaweyn maxaan ku leeyahay waryaa adiga ahaan kuma caynay may abtiman jirtee kuma caynay laakiin maxaan ku leeyahay nin wanaagsan matiid oo ninkii maxaa tahay lacagta Soomaalida diiday Soomaalina lacagteeda qasaareeyay 2 bilyan oo kun oo dollar baa lagu leeyahay markaas taarta in lagu doorto ra'iisul wasaare ha u dooranna baan leeyahay assalaamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh wala soo arka doorashada Soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynimo ma qalmaa ma sha Allah waa u qalmaa soo dhaweynina waayo dalkeenu markasta waxa u baahan yahay in isbedel ka dhaco isbedelkan hadda oo ka dhacay waxaan ugu hambaleynaynaa madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay hambalyo waxaan ka filaynaa inuu isbedel oo hore u sameeyo uu ku sii socdo isbedelkaasi oo ah federalismka iyo dib u dhiska ciidamada qof kasta hantiisa ma mooga wuu og yahay wuxuu sameeyay wuxuu sameyn doono ayaa ka badan marka waxaan ugu hambaleynaynaa guush u gaaray Soomaaliya waxaan leenahay hambalyo assalaamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah wala soo aragtaa doorashada Soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynimo ma qalmaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته taa waxa igu horeeyay horta baraha bulshada kala socdo in caadi kula socdo aad baan u rabay hadda caadi kuugu soo xirmay waxaan leeyahay doorashadii shalay ka dhacday nin wasiir oo Puntland ka tirsan baa hadda ka hor wuxuu yiri waanu argagaxnay waa ku argagaxnay runtii madaxweynaha horeyna waa loo yaqaanay nin cusub ma ahayn de waxaan isleeyahay nin walba meeshaad u qox lahayd iyo waxaad ku qox lahayd soo diyaarso madaxweynaha ina wada inagu inama wado sidaynu madaxweynaha uga baranay madaxweynihii ugu fogaa rajada dadka Soomaaliyeed runtii baa soo baxay madaxweynihii loogu rabitaanka badnaana waa tagay runtii waa arin filan waaya ayay noqonaysaa marka kulay 4 sano sidii horeba loo sheegay wax badan ma aha ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu ilaahay inoo fududeeyo kulay waxaan u maleynayaa inkastoo awal horeba da iyo waaya arag ahaa inuu waaya arkayo wax badan waxa madaxweynaha hadda hore u joogay lagu rabay dadku ay uga dabayaaceen inuu arki doono hadii lahayd ma isku day doono kulay ma gaari doone inuu isku day doonaan farmaajo maxaa halimsan maxaa dib u dhigay sidii kartaa farmaajo waxa dib u dhigay kulay sida ugu maqaalaha waxaan u maleynayaa lacag inuu bixiyana uu diiday waxaana la yiri hal xaraan oo nirig xalaal ma dhasho baarlamaanku sidoo ku soo baxay bay nooga iyo xaaraantinimadooda sida daraadeed waxaan isleeyahay waxaalaha qayb badan kamida shisheeye badanna kulay gacanta kula jiray oo maaragtay waa waxba walaaqay marka waxaala badan oo isu tagay waxaan dhihi karaa shalay Kiiya iyo Imaaraadka guuleystay Soomaaliya ma guuleysan laakiin Soomaali un baa leh iyaga un baa wadanka joogay oo haraya assalaamu alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal soo aragtaa doorashada Soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynimo ma qalmaa fikirkaaga walaal horta doorashada Soomaaliya xasan sheekh horta waa la doortay mar hadii la doortay waxaan leenahay wadanka u shaqeey waxaan rabaa inaan la dardaarmo oo tix yar oo hore hadda ka hor aan tiriyay laakiin inta qusaysa asaga aan u soo gudbiyo waxaan leeyahay xasanow sidii gabanada dugsiga noo dhigtaa garab ma siisaan sidii baan gunada uga baxshaa goor iyo ayaan dhakhtarada gudaha noogu yaal waa goloof maran sidii baan bukaan goomanaa dibad u geeyaa sidii bay wadadii godadkii iyo geesaleeda sidii bay baddii ugu gurmaan gabanadaydii sidii baa jiriifka u gurtaa kalluun gaajo loo qabay sidii bay gaalada qurmuun noo garnaqayaan sidii baan amxaar aan gudnayn gacal u moodnaa
haddii uu gugu soo curto oo gibil la saarsaaro gufaacadu sidii bay u layn gumaradeennii sidii baa abaar gaatamaa loogu go'ayaa sidii baa harraadnoo gubaa gumaca jiilaal kuwii xilalka aan geystayoon duubabka u geliyey muxuu sacab garaacoodii taray gocasho weeyaane intaas horta waxaan kula dardaarmayaa madaxweynaha hadda ka hor intaysa doorashada aan la gaarinna waxaan ku duceeyey midaan shacabka guulguulin oo danta guud ka shaqeeya oo gaala aan u adeegin oo garab siiya islaamkan guulow kaa baryaya